Itoobiya iyo Israa'iil laba shay ay ka siman yihiin baa jirta, taasoo hadhow caqabad ku noqonaysa Somalilan iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya. Horta ma ogtahay, ciidanka Israa'iil aan maanta naqaano, boqolkiiba 20 ilaa boqolkiiba 25 waa ciidamo ka soo jeeda waddanka Itoobiya. Marka ha la yaabin dadka dhahaya Israa'iisha Afrika waa Itoobiya, dadka dhahaya ha la yaabin. Midda kale sow ma ogid waddanka Itoobiya in yuhuud badan ay ku nool yihiin. Waan xasuusanaa dagaaladii Abiy Axmed lagu qaaday jabhadaha ay ku furmaayeen waddanka dhexdiisa. Waa tii Israa'iil diyaarad ay soo dirtay Itoobiya ay ku daabulanaysay dadka Israa'iiliyiinta u dhashay ay waddankooda geynaysay Israa'iil, maadaama Itoobiya uu dagaalo ka dhacay. Ilaa maanta Itoobiya yuhuud badan baa ku nool. Haddaba mowduuceena aan u dhaadhacno. Itoobiya iyo Israa'iil laba shay ay ka siman yihiin baa jirta. Midda koowaad waxa weeye Itoobiya iyo Israa'iil dhul u gooniya, xuduud u gooniya ma lahan markii loo eegayo Soomaaliya iyo Falastiin markii loo eegayo. Aan tusaale ku siiyo, Israa'iil wadamada dariska ay la tahay sida Lubnaan oo kale xuduudeeda kuma durqiso, laakiin markii Falastiin tahay way ku durqisaa, magaalooyin bay ka qabsataa. Ilaa maanta Gaza waxay rabtaa in Gaza Falastiiniyiinta ay ka baxaan ay Israa'iiliyiin soo dejiso. Marka Israa'iil markii loo eego Falastiin xuduud u gooniya oo u dhaxaysa ma jirto, mar walba magaalay ka qabsanaysaa. Laakiin wadamada dariska ay yihiin sida Lubnaan oo kale xuduud kama qabsato. Itoobiyana waa la mid. Itoobiya wadamada dariska ay yihiin maanta xuduud kama qabsan karto sida Kenya, Eritrea kama qabsato. Laakiin markii Soomaaliya loo eegayo way ku soo durqdaa, xuduudna way ka qabsataa. Magaalooyin hor leh ay qabsatay baa jirta. Ka hadli maayo dhulkii Ogaadeenii ay qabsatay, ka hadli maayo. Waxaan ka hadlayaa khariiradeena Soomaaliya ee lambar 7-ka ah. Xuduud hor leh bay qabsatay. Magaalooyin ay Soomaali degan yihiin ee xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysa ayay dhulkooda ku darsadeen. Sida Caabud Waaq, Balanballe iyo Goldogob. Bal wiilkaana xoogaa inoo faahfaahinaya ila dhageyso. waxaa ka mid ah Caabud Waaq oo halkaas aad ka arkaysaan, waxaa ka mid ah Balanballe oo halkaas aad ka arkaysaan, magaalooyin kale oo tuulooyin badan jira, Goldogob oo aad halkaa ka arkaysaan. aan Caabud Waaq ku hormaro marka. Caabud Waaq markaan sidaa u soo dhaweeyo oo aan soo dhaweeyo يعني سفعان كون فهنسية waxay ka dhigan tahay xariiqa wixii halka ka xiga, xariiqaas wixii halka ka xiga Itoobiya inay leedahay, wixii halkan ka xigana in Soomaaliya ay leedahay ay ka dhigan tahay. Okay, Caabud Waaq marka aan tago, Caabud Waaq halkaas bay ku taalaa. xariiqa ma ka sokaysaa ma soo ka shaqeysaa? hay waxay ka dhigan tahay Itoobiya inay leedahay magaaladan ay ka dhigan tahay. waa ka xariiqi way ka soo ka marisay. qof ajnabiga maanta hadii uu yimaado ama wax laga weydiiyo ka waran Caabud Waaq hadii la yiraahdo waxa uu leeyahay waxay ka tirsan tahay Itoobiya. arrinkaas dawladdu kuma baraarugsana, waa ogahay, waana arrin halis ah. Okay, Caabud Waaq qiyaastii waa meel ay ku nool yihiin dad ka badan 100,000 oo qof. waa magaalo weyn oo degmo ah oo 100 iyo intaas sano jirta iyo ka badan. Okay, kaligeed maaha, waxaan oo dhan waa tuulooyin Soomar Balanballe tag aawe Balanballe. marka Balanballe joogto ayadana Balanballe gudaha ku jirta Itoobiya u xisaabsan tahay. hay soo soco marka halka ay cili Goldogob igey. Okay, aawe marka aan Goldogob tago, Goldogobay ku aawe adigana waa ku kan. hay Goldogobna xaggaas bay ka jirtaa. Midda kale arrin baan idin sheegayaa. Itoobiyaanka gabi ahaanba way aaminsan yihiin. Itoobiyaanku waxay aaminsan yihiin dhulkan Soomaaliyeed oo dhan inay iyaga lahaan jireen. Sidaa daraaddeed boqolaal sano waxay isku dhaarsadeen in dhulka Soomaalida sidii ay kula wareegi lahaayeen bal la wareegaan. Bal ka waran haddaan soo dhaweysano oo dekad ka kireyna, bal ka waran. Hadda caawa xilligan aan muuqaalkan duuba isla caaway war ayaa soo dhacay. Itoobiya waxay tiraahday degmada Lughaye ayaan dekad ka dhisanaynaa. markii hore waxaan u maleynaynay in Saylac ay la wareegayso, laakiin degmada Lughaye ee gobolka Awdal ku taala ayay tiri halkaasaan ka dhisan doonaa. waliba warkeeda waxay sii raacaysaa, waxay tiraahday
heshiiskeenu waa 50 sano laakiin waa dheeraysan karnaa 100 sano waa gaarsiin karnaa markii halkaa aan la wareegno oo aan dekad ka dhisano oo wuxuu inoo fariisto ayaa Somaliland aqoonsanaynaa Somaliland hadda daqiiqadahan kula hadlayo oo codka duubayo waxa laga yaabaa in codka hadda duubaya waxa laga yaabaa maalin kadib ama 2 maalin kadib in uu muuqaalka in soo gaaraa dhici karta hadda codka aan duubaya isla caaway Somaliland warbay soo saartay oo ay ku sheegayso inta aysan dekad ka dhisan degmada lagu hayo intaysan ka dhisan ka hor waa in ay ictiraafkana siisaa halka Etoobiyana isla caawa ay tiraahday markii aan dekad ka dhisano oo meesha aan saldhigano markaas ay ictiraafka siinayna halkaas filim baa ku jira waxa dhici karta in hadhow ay ku boodaan Etoobiyaanku waa 120 milyan waaye qiyaastii 100 milyan oo ka mid ah waligood wax bad ah ma arag bal ka waran hadii degmada lagu haye ay saldhig ka sameystaan ay hadhow dekadooda dhistaan hadhowdiiso Etoobiyaanka 100 milyan aan badda arag soo hadhow imaamayaan si ay bad u arkaan soo dalxiis ahaan u imaamayaan Somaliland gabigeeda waxa ku nool 4 milyan ilaa 5 milyan oo qof baa ku nool 100 milyan oo dalxiis rabtan haday timaado meeshii waa qasmaysaa marka waxyaalo badan waa inay Somaliland ka fikirtaa war Etoobiyaan waxa la soo dhaweystay ma ahan Etoobiya adiga wuxuu ku yaqaanaa cadawgiisa koobaad Soomaalida u yaqaanaa annagana cadawgeena koobaad waa Etoobiyaan marka cadawgaadii hadaad dekad isku siisid oo dhulkaaga soo dejisid waa garan kareynaa waliba cadawgaaga dhulka aad degan tahay wuxuu u yaqaanaa dhulkiisii uu lahaa mar unna uu ka soo ceshan doono adigiina dekad baa siinaysaa dhulka Etoobiya ay naga haysato ee ogaadeynaya magaalooyinkii waaweynaa intoodii badnaa Etoobiyaan baa degay hadda caasimadda ogaadeynaya jigjiga 60% baa Soomaali ah 40% kale waa Etoobiyaan iyo wixii soo raaca haddaad degmada lagu hayo aad dejisaan hadhowna ay dekad ka dhistaan magaaladaas dadka degan guryahooda ka iibsanayaan waliba lacag fooqol caqliya ka soo qaada gurigii lagu iibsan lahaa 20,000 hadii ku dhahaan 30,000 baa ku siinayna marka qofku diidi maayo hadhow degmada lagu haye sida guryaha u iibsanayaan bay degmadaas oo dhan Etoobiyaan noqonaysa dadka u badan ee degan Etoobiyaan bay hadhow noqonayaan waa qaabkii Israa'iil ay ku soo gashay Falastiin Falastiiniyiintii dhulka deganaa guryihii ay ka iibsadeen lacagtii ay rabeen oo guriga qiimaha ugu fadhiyay lacag ka badan ayay siiyeen kadibna Falastiinta waa ka baxeen meel kale degeen maadaama ay lacag heleen kana hadhow saas dhici karta Etoobiyaanka iyo Israa'iiliyiinta shayga labaad ay ka sameeyeen waxa weeye meesha ay degaan fitna ay ka bilaabaan Israa'iiliyiinta waan u jeednaa dhulka Falastiiniyiinta ay degeen waa taa fitna markaas ka kicinaya dagaalo ka kicinaya bariga Afrika oo dhan iyaga fitna wada Mareykankuna waa garab istaagan yahay waa gardaro garab og waaye Etoobiyaankana waa la mid haday hadhowdi degmada lagu haye ay dekad ka sameystaan hadhow waxa ku khasbanaanaysaa Etoobiyaankaas wadamada uu heshiiska la yahay inaad adiga heshiis la noqotid wadamada uu cadow u arkana inaad adiga cadow u aragtid sababtoo ah dhulkaagii buu degan yahay xeebta wax walba uu ka sameeyay kama hadli kartid adaa ka kireeyay waliba hadeertaan waxa la sheegay 20 kiiloomitir baa laga kireeyay laakiin hadhowdu waa sii balaarsan karaan hadhowdi aaga xeebta ay degan yihiin hadhowdi taas waxay sababaysaa wadamada halka qalalaasaha ka sameeyaan oo maraakiibtooda ka dhacaan wadamadaasi gantaalaha ay soo tuuraan in ay ku dhacaan magaalada lagu haye kamana hadli kartid waayo 20 kiiloomitir waxay doonaan bay ka sameyn karaan adaa ka kireeyay hadeertaan tusaale aan ku siiyo dagaalkan Israa'iil iyo Falastiin u dhaxeeya Xuutiyiinta Yemen waxay sameeyeen maraakiibtii Israa'iil aadi lahayd ayay jidka u galeenba way afduubteen hadhowdii Israa'iil iyo Mareykanka waxa la heshiin kara Etoobiya waxay dhahayaan Xuutiyiinta naga qabta Xuutiyiintana ma aha dad masaakiin oo gantaalo yar yar haysta ma ahan waa dad awood badan waaye gantaalo khatar badan bay haystaan Israa'iil naftarkeeda waa ka baqaysa dagaalkan Falastiin Israa'iil u dhaxeeya in ay Xuutiyiinta soo galaan bay ka baqaysaaba hadhowdii Xuutiyiinta oo ku dhow hadii Etoobiyaanka khashkhashaadaan gantaalka lagu soo tuuro Etoobiyaankaas degmada lagu haye ay dekada ka sameysteen hadhowdii dhaawac baa gaari kara gantaalaha ay soo tuuraan Xuutiyiinta dad Soomaaliya bay khatar galin kartaa marka Etoobiya iyo Israa'iil
meesha ay degaan fitna ayay ka abuuraan fitnadaas Itoobiyaanka hadhow keenaan annaga saameyn bay nagu yeelanaysaa waxa ugu horeeya ay ku yeelanayso waa degmada Lughaye ay ka samaysteen dekada hadhowdii magaalooyinka waaweyn Burco iyo Berbera iyo Hargeysa gaari kartaa hadhowdii waa sii ballaaran kartaayo Soomaaliya dhan bay gaari kartaa marka Itoobiyaanka lama soo dhaweysto Itoobiyaanka hadda soo dhaweysatid waxaad gacanta ka saartay waran uu bari kamaal kugu duri karo